السلام عليكم أصحابتا soo dhawaada waa walaalkiina Daljir Cusmaan sida aad ogtihiin waxaan la socodka korsiinay Capcom maanta waxaan bilaabanaa qaybtii lixaad ee course-ka taasoo ku saabsan sida muuqaalka kalar loo saaro adigoo isticmaalaya Capcom soo dhawaada haya asxaabay soo dhawaada hadda waxaan sameynaa muuqaalka hor soo sheegnay kaasoo ahay sida Capcom muuqaal kalar loogu saaro soo dhawaada waxaan dhigay wax taabana new project saa u soo gashanay muuqaalka aan kalarka saari lahayn okay muuqaalka markuu uu san yahay waxaan sameyn doonaa hadda muuqaalka u jeedin waa 4 second waan badin doonaa waxay speed ka taabanayna normalka adiga slow motion yara gashanayna soo nagu dheeraado okay kadib waxaan taaban doonaa koobiga before after oo u noqdo waa koobiyeysan doonaa dhow before after aan la rabaa okay halkaas kan before ka dhigayna kan after ka dhigayna marka maxaa sameyn doonaa muuqaalkan kaas u soo gashid waxaa sameyn doontaa muuqaalkii aad inaad dhigaysa taaban doontaa kadib waxaa taaban doontaa meeshan qorata filter raadinaysaa filters taabo dadka qaar qalad ay garanayaan in sheega tusaale hadda san aso imaad filter ku soo baxaa mujida filters ku soo baxaa laakiin marka san dhahdid aad taawatid muuqaalka filterska dhow wuxuu ka radsan kaga camal ku baraaweeno jida ina dhow ku jidiyo ka raacana ku jidid laakiin hadda macnaha muuqaalka aad ku tagtid filterska taabatid muuqaalkan biso ku saarmaa kan kale kan gadag oo gadaale marka sabnayo laakiin kan gadaale wuxuu saameynaa marka taabatid apply to all marka taabatid labadaba ku saarmaa marka laakiin hadda muuqaalkan biso ku saarmaa asla fahno banteen okay kan hadda marka bilaawno xarjina na fahanteen muuqaalka taabo arat ina kalar saartid ama filter ka saartid intaan adiga kaartida ka saaran kartaa markii adiga soo baxay muuqaalkaaga taqaanid fahanti waa sarhala u saaran kartaa laakiin aniga hadda aan saari doono favoriteka hore u gashtay favoriteka taabana waxa way kan marka saaid waaye waa yareysan oo iska yareen doonaa adiga konton halas amal iska geysanaa 60 kod sagaal iska dhaad marka adiga muuqaalkaaga aad taqaanid wax ka xog soo baxay fahanti waa okay adjustmentiga dar inta ka taaban kartaa sidoo kale waxaa sameyn doontaa filter ku laabat filters markaas u set adjustmentigana xagaasna ka dooran kartaa dhawo isku mid waa muuqaalka hadoo super 15 iska dheereeno muuqaalkii hadoo macnaha oo mugdi hadoo iftiinka ayaa mugdiga waxa soo cesho hadoo iftiinka hadoo mugdiga heen iftiin wax yar u yeelo kan ma isticmaalan aniga meeshan wad adiga iska geeso marno kan shaatiga waaye fahanteen marka shaatiga oga buluug saaid ma ahan fahanteen adobe oo background-ka gadaal oo macnaha uu yahay cagaar tusaale geed camal dooya kana isticmaalaysaa fahanti hadda laakiin ma ahan background-keena kuwan kale waxa ka isticmaalnaa jirin iska dhaafeena graphics dooro muuqaalka kalarka meesha u badanayo ability-ga buluugan dooro saxde highlights-kan dooro sena minus waa dhanka minuska awoodaysaa shadow wada muuqaalka ku jiro maaragtay ku jiro mugdi jida sadee wajiiran wax cadaana inta wanaagsan waxa waaye muuqaalka inuu kalar ku siiyo jida mar blue isku kala mar isku kala daanay kan dhinaca minuska u soo wadeena sidoo kale waaye
هذا مقالك وحو كسو بحايا تقان أنا استبيدا راعي اللي راعين هذا كتسو على قاعدة بس مقالك سان إيسان أود فيرماتون سان إيسان أود كان كسو بحايا كور الرادي فهمتي كدب أدا تقان أنا دكي مكو سان كسو بدا دكي أنا ساعة مرة كسو بحايا لك أنا لقيابا بلاسك إنو كسو بحايا لقيابا بلاسك إنو كسو بحايا لقيابا مركي waxa aan sameeyay sameeyay waxa sameeyay dasmis muuqaalkiin inuu isku moojid ahna laga yaabo inaa isku meel joogna laga yaabo isku cimileen ahna laga yaabo markii asqaldiyaan kan asan xogaa san wada dhigaysid yar boo jaleys oo galleen fan jidin hal xaas leh waaye kapkutka before after before saaso ahay san after waaye okay saxde kadib waxaa imaanaysaa meeshan ay ku qoran tahay retouchka face dheh heer fijiga smooth ka dhig ilkaha cadaan ka dhigo kontanka camal iska geyso bis okay marka ujeediin asxaabta halas le waaye ma adko harjana ka faa'iidin muuqaalka qurxan sameyn doontiin insha Allah soo dhawaad